الله سهل أموره. بسم الله الرحمن الرحيم. عيمنتا جيريتانكا الصومالية هردع صوماليا قح إيا التهريب أيي سانيتي waxa qulqulaya waa dadkii lagu nagaan lahaa sida dhalinyaradii iyo bic mushtarkii yaa wadanka ku haraya ama u haraya jawaabtu waa mid ka nixinaysa waxa ku haraya mid naftu ka sii ciriiriq leedahay oo hawlgaba iyo dumar iyo caruur waxa u haya qowmiyada kale oo hadda ku soo qulqulaya haddii Soomaaliya inay sii jirto laga rajo qabo waa in la joojiyaa qulqulladaas iyada oo la firfircoonaynayo shaqo abuur dadka ku nagayn kara dalkiisa dawladda aan ku filaan karin inay tilaabooyinkaas soo socda qaado xaq uma yeelan karto inay sheegato inay deegaankaas xukunto kobcinta iskaashatooyinka luumaysi oo ay kor joogtaynayaan hay-adaha dawladeed oo ay khusayso si loo hawlgeliyo dhalinyarada loogana baajiyo tahriibka 2 dhiirigelinta tacabka beeraha si loo horumariyo wax soo saarka gudaha iyada oo canshuur lagu soo rogayo badeecada wax soo saarkaas la midka ah oo dibadda laga soo dhoofiyo 3 dhaqashada xoolaha tan iyo intii taariikhda Soomaaliyeed laga xusuusan karo 72% ilaa 75 waxay ku soo badbaaday dhaqashada xoolaha taas waa laga soo tegayaa oo magaalo ayaa la soo gelayaa taasi waxay u baahan tahay in la baajiyo qodobadan aan soo xusnay waxaa door ka ciyaari kara arrimaha soo socda 1 hirgelinta tabo lagu dhowrayo bay'adda si looga faa'iideysto khayraadka dabiiciga ah oo jira 2 sugidda dhulka Soomaalida intiisa wax laga beeri karo iyadoo fiiro gaara la siinayo Puntland 3 hirgelinta habab lagu ceshanayo biyaha roobabka oo ku qulqula badaha si loogu adeegsado waraabka iyo wax soo saarka barnaamijkan waxaa isku soo dubariday Cabdiraxmaan Cumar Warsame oo cinwaanadiisu ay halkan ka muuqdaan mahadsanidin